khasaaruhu aanu badnayn ciidanka booliiska si degdega u soo gaareen waa dhaqamada ugu cusub oo kusoo kordhay dugsiyada sanadkan fariinta halkan aan uga dirayno waalidiinta iyo ardayda waxay tahay arday iskuulkiisii burburinayaa waa wax inugu cusub oo ceeba oo qaranka ceeb ku ah oo ardaynimada ceeb ku ah oo waxbarashada ceeb ku ah arrintaa waxaan leenahay ardayda ku waalidiinto iyagoo heli karaya wixii ay ka cabanayaan inay si silmiya usoo gudbiyaan oo ay ugu soo gudbiyaan laamaha waxbarashada gudoomiye gobol baa jira mid degmaa jira wasaaradda waxbarashada ayaa joogta ciidamadii amniga ilaalinayay baa jooga arrintaasi qarankeenana ceeb bay ku tahay ardaynimadana ceeb bay ku tahay waxbarashadana ceeb bay ku tahay fariinta aan u dirayno dhalinyarada reer somalilan ee waxbarata waxa weeyaan dhaqankaas waxa weeyaan waa dhaqan ceeba waa in laga waato waalidiintuna waa inay la socdaan ardayda ay gacanta ku hayaan iyo ubadkooda si aanay dhibaatooyinkaa dhibaatooyin aanay fariinta aan uga dirayno halkan dugsiyada waxa weeyaan dugsiga u hoggaansami waaya awaamiirta waxbarashada ee ay soo saartay wasaaradda waxbarashada iyo awaamiirta ay soo saareen guddiga covid-19 ee heer qaran ee lagula tacaalayo xanuunka covid-19 iyo habraaca wasaaraddu ay dejisay ee tirada loo qoondeeyey galaas walba ardayda inay fadhiistaan dugsiga u hoggaansami waaya waxaa laga qaadaya tallaabo adag waanu kormeeraynaa lama baryayo iskuul walba waanu gelaynaa tallaabo adag oo haddii ay u hoggaansami waayaan sharciga ay noqonayso in fursadda lagala noqdo ayay gaadhaysa marka waxaan leenahay maamulayaasha iskuullada waa inaad u hoggaansataan habraaca wasaaradda waxbarashada ee loogu talagalay kalaas walba ardayda loo qoondeeyey iyo habraaca covid-19 ee gudida caafimaadka ee qaranka la tacaalidda xanuunka covid-19 ay soo saartay arrinta labaad waxa weeye maamulayaasha dugsiyada waxa weeyaan marka uu soo baxo cabatin dhinac kasta ha ka yimaadeen waxa weeye sida loo maareeyo ayuunbay dhibaatada ka dhalataana ku xidhnaataa waa inay wixii ay u taagi waayeen la wadaagaan wasaaradda waxbarashada gobolka ciidamada ammaanka laakiin haddaad dhibaatada qabsataan oo marka ay qaraxdo un ay dibadda u soo baxdo waxa weeyaan taasina wax laydinka aqbalaya ma waxaan kusoo gebagabeynayaa waxa weeyaan dhallinyaradu waa ubadkeennii waa ubaxii dalka u soo kacayey waa madaxdii berrito waxaa loo baahan yahay inaydaan arday macallinkiisii shiilayo iskuulkiisii waa ceeb arrintaa ina ka waantowdaan aad iyo aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi dugsiga salaama ee magaalada hargeysa ayaa maanta waxaa ka dhacday shaqaaqo kooban oo ardayda ay samaysay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha wasiirka waxbarashada iyo barasaabka gobolka ayaa halkan soo gaaray warbaahinta la hadlaya ciidanka booliska taliyayaasha kale saxaafadda bahda waxbarashada joogta ee gobolka iyo heer degmabale dhammaantiin asalaamu calaykum intaa kadib kulley hadal nuxurkiisa wuxuu sheegay barasaabka gobolka goobta waxaynu nimid rabashkana saa ka dhacay iskuulkan salaama waxaa horta ayaan darro ah oo nasiib darro ah macallin iyo maamule ardaygii uu wax u dhigaya aanu ka xishoonahayn oo isagu ka dhumayo albaabsi soo xidhaaya ninkaa dhibaato waa dhibarku ma jirto macallin uma noqon karayba de waa ceebaysaa ku tahay inu macallin u noqdo waxa weeyaan ardaygu de inuu ka xishoodo mas-uulkiisa ama maamulihiisa ay isagay anfacaysaa taas dhibtaana waxaa keenay waxa weya waxay noqonaya niman kala shaqaysanay markii hore oo ganacsato wada shaqaysanin bay noqonaysaa laakiin dad wax wada beranaya ama macallimiinsu ahaa ama ardaysu ahaa ma noqonayaan marka horta waxaa leeyahay maamulayaasha iyo macallimiinta iskuullada macallimku faadib isugu noqda oo ardayda sidii a uga noqon waalidka waa waalidkii labaad ee macallinka aabbaha iyo hooyaha dhalenka ku xiga oo macallinka macallinku markaa waa inu arday warka xishoodo macallinka ardayduna inay noqoto qaar dee bila akhlaaqaho qofka ardayga ka xisho waa macallinkiisa waalidkiina kama xishoonayo oo waalidkiina kama xishoonayo marka iyagana waxaan leeyahay bal taasina waa inoogu ceeb dhaqan ahaan bay inoogu xun tahay dabeecad ahaan bay inoogu xun tahay marka waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay inaynu arrinkaa dib ugu noqonno ardaydana waalidiinta dhashay ardayda waa inay waalidka arrintooda ka warhayaan oo ay ilaashadaan dhibaatada iskuullada quri ma aha oo lama odhan karo waa maamulayaasha iyo macallimiinta qura lama odhan karo laakiin dee waxa ka koowa iyaguna ardaydii baa ka qayba oo maadaama ay ardaydii iyo rubash ka samaynayaan waa ka qaybsa barasaabku sheegaya arday iskuulkiisa jibinay weligeen maynaan maqalin ka hor darraa baalki dhaweyd ka hor weligeen maynaan maqal arday gadoodo oo ku gadooda dariiqyada ama wax kale gadoodo way maqli jir laakiin arday iskuulkiisa qura ku gadoodo weligeen maynaan maqal oon cidna waxba yeelahayn oo masiibo
marka waxaan leeyahay bal maamulayaasha iskuulka dib ay isugu noqdaan ardayduna maxaa yeelay waalidiintoodii ba ugu noqdaan qof kastaba wax ka warhaya ilmihiisii dib maalintii hore dhacay ka dhacay Nuurudiin kiiskiisi waa gabagabo waa la soo saarayaa hadday arday noqoto iyo hadday macallin noqoto mid kasta oo dembigaa ku yimid lug yeelatay ama ay ku caddeeyaan maxaa yeelay dembaarayaashu waa la sharciga la horkeeni kan imika aynu joognana waa sidaas ila ciday ku caddaato marka cidna laga dhaaf maayo arrinkana culays baynu saarnaa badan waxbaa soo kordhiya badan oo aynu arkayno arrinkaas si loogu hortegi lahaa waxaan anagu kulley wasaaradda arrimo guud ahaan ama bilaysi dhammaantayaan ku soconaynaa uun inaanu fulino ama amiinta ay soo saartay wasaaradda waxbarashada oo waxaan lahayn minister bay iskuulladu leeyihiin oo bahas waxbarashada waxaan lahayn minister waa wasaaradda waxbarashada kulley annaga waxaan doonaynaa inaanu fulino uun waxyaalaha ay mashruuc ay soo saartay wasaaradda waxbarashadu taas mar ku dhaqmi doonaa wareegtayna way soo saareen iskuuladana waxaa leeyahay ka digtoonaadana wareegtaa la soo saaray iyo xeerarkaa la soo saaray sideeda ha ugu dhaqmaan ma leeyahay iyaguna oo insha allah sideeda ha ugu dhaqmaan si aanay cidda isu qabsanin aadna waxaan u mahadnaqayaa ciidanka booliska oo saaka markiiba halkan hawsha soo gaadhay si dhib yar soo gaadhay gudoomiyaha gobolka maroodici ku-xigeenkiisa aad iyo aad baan iyagan ugu mahadnaqayaa intaanu kusoo gabagabin doona kolley hadalka naftiisana waxaan u diinayaa wasiirka waxbarashada uu kelmadiisa u idhahdo asalaamu calaykum warahmatullahi هذا رئيدي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وزير ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha taliye ku-xigeenka ciidanka booliska taliyayaasha kale ee ciidamada ee halkan maanta iskuulka yimid gudoomiyaha gobolka maamulka madaxda waxbarashada oo agaasimaha iyo gudoomiyihii degmaduba ay joogaan saxaafadda dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka ereyga aan doonayaa warkii hore waxa dhameeyey madaxdii iga horeysay laakiin ereyga aan doonayaa halkan inaan jeediyo waxa weeye saddex erey oo mid ku saabsan yahay dugsiyada gaarka ah midna uu ku saabsan yahay ardayda fariin ta saddexaadna ay ku wajahantay waalidiin ta dugsiyada gaarka aan u soo jeedinaya waxa weeye sharci buu waddanku leeyahay sharciyadaasi sharci waliba meel gaar uu xukumaa sharciga waxbarashada iyo siyaasadda waxbarashada iyo habraaca xanuunka COVID-19 saddexduba waxay waajibiyeen in arday kastaa markuu uu fasal fadhiyo ugu yaraan uu helo space ama duralaati madhan oo uu keligii fadhiyo oo ah 1 mitir oo 2 jibaaran fasalka marka la yidhaahdana 45 arday wax ka badani ma fadhiisan karaan fasal 48 mitir oo isku wareega fasalka iskuulka lagu arko fasal 45 arday wax ka badan ay fadhiyaan weliba waa markuu iskuulku cabirkii wasaaraddu ay dejisay markuu fasalku yahay 45 arday wax ka badan iskuulka fadhiisiya waxaan u sheegayaa liisanka in saacaddaa laga qaadayo intii la isu dul qaadanayey ee la isu sameeyey ee waktiga ay na siiya way soo dhammaatay liisanka waa laga qaadayaa waa kow isla markaana ciidamada booliska iyo maxkamadaha iyo cidda u xil saarani sharciga fulintiisa cidda u xil saarani tallaabo sharciga waafaqsan bay ka qaadayaan maxkamad baa la geenayaa qofka qof dilaana sharci buu jabiyey qofka sharci waxbarashada shabiyaana sharci buu fariyey labadaba ciidanka booliska iyo maxkamaddu tallaabada ku habboon bay halkaa kaga qaadayaan waxaa kaloo habraaca COVID-19 ee guddiga qaranka ee madaxweyne ku-xigeenku guddoomiyaha uu yahay uu mamnuucay in ardayda laga qaado ilaa inta xaala uu xanuunkani jiro in ardayda laga qaado lacag aan ahayn lacagta fiida ama bil ha laga qaado ama semester ha lagaga qaado jaamacadaha iskuulladana qaar baa bil ka qaada bishaa wax ka badan lacag aan ahayn oo ardayda laga qaadi karaa ma jiro waa mamnuuc waa sharci daro imtixaan bileed baa la qaadayaa waraaqaha halkaa ka iibsan librariga iskuulka buugaag aan ahayn kuwa wasaaraddu daabacday oo ardaydu ay xor u yihiin hadduu iibsan karayo weeye inuu ka soo iibsado dukaankuu doono lama odhan karo iskuulkaad ka iibsanaysaa waa sharci daro
waa xeer jabin dowladduna tallaabay ka qaadaysaa waktina siiya dambe way soo dhammaatay nin walaba ogow lama odhan karo ardayga nusacaa markuu u soo baxo dee hadduu lacag sitana halka ku xigta iskuolku ka iibsanaya hadduu shadadiisa ku sitana wuu qaadanaya laakiin albaabka lagu xidho la yidhaahdo maqaaxida iskuolka ku taala meel ahnayn kama iibsan kartid war nimankan xagee ka yimaadeen dadka maydi ka haleen ilaahay baa le dadka suuqa xorta sheegaya meeshaan doonaan ka iibsanaya nusacaan halka ka iibsanay ma odhan kartid bugaagta halka ka iibsanay ma odhan kartid wallaahi way dhammaatay intii laysu dul qaadanayay hadhowna dee ninka soo raaca iyo caaqilka usoo ergeeyey iyo madaxda usoo ergeysa iyo sheekha usoo ergeeya ee ay yidhaahdaan ninka carruurta saa u geliya baan ergo u ahaye waxba maahe siidaa waa la dembi isaguna dembiga ha galo ayuu leeyahay nimanka intay whatsapp group samaysteen ku wada hadla yidhahdaa aynu sidaa samayno dee dawladdu waxay u aqoonsanaysaa jabhad la dagaalamaysa dawladdu jabhad la dagaalamaysa dawladdu shaqada sida tallaabada ka qabto ay ka qaadayso way taqaanaa markaa waxaan idin leeyahay war nin walowba sharciga raac markaa sharciga raacdaana iskuulladayadii baa tihiin horumarintiinaanu ka qayb qaadanaynaa macallimiintaanu idiin tababaraynaa haddaad tidhahdaan macallimiin dheeraada maalma qaarkood macallimiin baa naga mudan noo soo dira guddiga waxbarashadaa ka mid noqonaysaan waxaa ka mid noqonaysaan guddiga jaangooyeysa horumarka iyo waxbarashada somalilan ninkii sharciga ka hor yimaadana dee anigayga wasiirka haddaan ka hor imaadana dee tallaaba layga qaadaya markaa guruub isku xidhan oo meel joogo oo isu haysta inay dawladda la siman yihiin ay wadahadal la gelayaan war dawladdaa ka mas-uula meesha sharcigaasina baarlamankaa baaskireeyey golaha wakiilada baaskireeyey golaha guurtidaa gacanta u taagay oo baaskireeyey madaxweynihii la doortay codka lagu doortay somalilan ay dooratay baa saxeexay ninka intaa ka weyne isla balaa intaa waad ka hortegi kartaayo dulqaadka halkaa uu ka dhammaaday ogaada ardayda waxaan leeyahay haddii laydinku khaldamo wasaaraddii waxbarashada meel kasta xafiis bay ku leedahay waad u soo dacwoon kartaa laakiin ardayga ku kaca magaca gubbeena oo uu goob waxbarasho uu kula kacayo dembi bay leedahay magaca gubku waa dembi ciqaabeed markay idinka soo dacwooto haddii aad adigu isku aragtay in lagu xadgudbay oo ama lacag lagaa qaaday aan ahayn in lagaa qaado ama bugaag lagugu qasbo lagu yidhi iskuul ka iibso ama nusaacihii lagu yidhi makhaayaddaa iskuulka mid aan ahayn kama iibsan kartid ama aad u aragtay in xaqdarro lagugu eriyey waad soo dacwoonaysaa waxaanu samaynay xarun wicitaan oo ah nambarkeedu yahay 9666 waa 3 lixaad 9 iyo 3 lixaad waxaa laga soo wici karaa shirkad kasta oo isgaadhsiineed somalilan ka shaqaysa ardayga laakiin ma dacwoonaye gacantaa ku qaadanaya sharciga kaasna gacan biraa lagu qabanaya tallaabaa laga qaadaya kuwii maalintii dhaweyto waa iskuulkii labaad baan u malanayaa ee 10 cisho gudahooda wax ka dhacaan cid kasta oo ka qayb qaadata oo daaqad yar jebisay haddii somalilan leedahay wuu buriyey tallaabaa laga qaadaya waxaa loo arkayaa oo aanu ka shakeyna xitaa war ardaydan yarana markuu macallin yidhahdo xaggan u beedho buuqa samaynaya somalilan securitygeeda iyo nabadgelyadana khatar bay ku yihiin baaritaan waxaa lagu samaynayaa inay cid kale ka dhex hadlaysa iyo in kale oo ay gacan kale ku jirto waayo macallinkaygii baa igu yidhi xaggaa u beedh oo dabeetana iskuulkaa jajabiya qubay qac ma jajabin kartid tallaabaa lagaa qaadaya gacan biraa lagugu qabanaya ciidankii booliiska iyo wasaaraddii daakhilguna way nala joogaan waa kuwa dhacida jooga iyo madaxdii gobolladu iyagaa u xil saaran fulinta sharciga saacaddaa laga bilaabo waxay haystaan amar ah inay iskuul kasta intay tagaan ay eegaan oo 45 wax ka badan fasalka fadhiyaan maamulaha iskuulka iyo macallinka ogolaaday in 45 wax ka badan uu fasal fadhiisiyaba inay tallaabada kaga habboon ka gutaan iskuulka lagu arkana maanta waa maxay taariikhdu 10 maanta oo laga 10kii maarisha maanta laga bilaabo iskuulka la arkay 45 arday wax ka badan fadhiisiyay liisa kana waa laga qaadayaa dembiga ciqaabta oo xeerku jabiyana waa la barinaya taas saddexaad waalidiinta waxaan u sheegayaa carruurtiina
waa carruurteennii waa ubadkeennii waalid baynu wada nahay dee aynu wax u sheegno oo aynu wanaagga u sheegno oo aynu ogaano ardaygeennu iyo ilmaheennu wuxuu ku dhex jiro aynu ogaano oo hadduu wax u samaynayana ha laga qabto dee ka dhegaysan waayana ha loo sheego laabaha sharci fulinta u xil saaran wasaaradda waxbarashada guddoomiyaasha gobollada guddoomiyaasha degmooyinka kormeerka iyagana tallaabadaasoo kalea laga qaadayaa ninka lagu arko gobolku guddoomiyaha ka ahaa oo iskuullo 45 wax ka badan ay fadhiyaan iyo iskuullo lagu qasbayo ardayda saacad ama lagu qasbayo buugta qasab halka kaga iibso ama lagu qasbayo waraaqa halka ka iibso ama lagu qasbayo nusaaca halka ka iibso nusaaca haddii iskuulku sii karayo annagaaba soo dhaweynana oo la caawinana odhanana haddaad bilash ku siinayso welcome xataa haddaan bilash ku siinayo wuxuu xaq u leeyahay inuu idhaa anu ka bilash kaama doonaye makhaayaddan lagu xitaa wax ka soo cunaya sii daa waktigun baa loo cayimaya hadduu nusaaci ka soo daahana dee tallaaba laga qaadaya laakiin intaan albaabka hoosta uga xidhan idhahdo halka ma maxaabiis baa ardaydu wasaaradda waxbarashada ana amarkaana horena way u qabtay imikana way qabtaa maalinta wax dhacaanu inaan isla yaacno maaha wasaaradduna waa ka qayb shaqaalaha wasaaradda hawshoodii gudan waayey in iskuullada marba mid horjoog ka dhacdo markuu shaqadiisa gudan waayo bay da waxaas imanayaan uu sharciga fuli waayo markaa ka soo cawda iyo ka yidhaahda wiil maqli waayow dee saacaddaa laga bilaabo risaangarayo iscasiro waxaa tiraa warba ku fashilmay cid kale u dirta laakiin dulqaad dambe oo loo dul qaadanayaa ma jiro waxaana rajaynayaa inaynu dhammaanteen sharciga wada raaci doonno ardaydeennuna ay noo wanaagsanaanayaan macallimiinteennana waxaynu la qaban karnaa inuu qabanayo iskuulladeenna iskuullada gaarkaa iyo kuwa dawladdaba hadda amarkaasi wuu quseeyaa kuwa gaarka oo qura ma quseeyo kuwa dawladda laftigooda sharcigu ma ogola dee wuxuu la xeer yahay kuwa waxaan kaloo doonayaa fursadda inaan uga faa'iidaysto waxaa soo baxay niman inta iskuulla ay furtaan madarasa ayay yidhahdaan magac af carbeed oo la baxa dabeetana waxay dadka uga dhigayaan inuu kaasina iskuul muslim yahay kan magaca dugsiga loo bixiyana aanu ahayn iskuulladu waa diintana waa lagu wada dhigtaa qofka furta ama af carabi ha ula baxo ama madarisada ha u bixiyo ama af kale ha ula baxee qofka iskuul aan ka diiwaan gashanayn wasaaradda waxbarashada ama quraan ha lagu dhigto ama xisaab ha lagu dhigto ama combyuutar ha lagu dhigto ama iskuul kale ha lagu dhigto qofka furta ee isna sharcigaa raaci waayana waa la qodob waxaan doonayaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto wasaaradda waxbarashada inay go'aamisay in iskuullada waxbarashada lagu soo daro maanta laga bilaabo lagu soo darayo maadooda diinta markii horeba waa lagu dhigan jiray oo tarbiya lagu dhigan jiray laakiin taxfiid alqur'aan baa lagu soo daraya taxfiid alqur'aan baa lagu soo daraya ardaygu ciddii ku cilmiga lahayd baa la weydiiyey ardaygu markuu fasalka koowaad joogo ee dugsiga hoose dhexe hal jis buu xafidaya ka labaad markuu joogana 2 jis saddexaad 3 afraad 4 waa 10 jis afarta sanee dambe hadhayna sanad walba 5 jis buu xafidaya dugsi dhexe markuu ka baxo isagoo xaafid alqur'aan u baxaya dugsiga sare markuu soo gaadhana foomanka waxaa loo bilaabayaa tafsiir waa inuu dhameeyo form 2ga markuu marayana fiqi buu dhiganayaa form 3ga markuu maraya wuxuu dhaqanayaa fiqi muqaarana afarta madhaboodba fiqigooda waa inuu yaqaano marka ardaygeennaaasi markuu dugsi sare ka baxo isagoo caalimo oo diinta yaqaanuu ka baxaya markaa kuwa caalimkii daaqadda jabin maayaan cidda jabin maayaan iyagaa inoo dhiga markaa waxaan leeyahay ninkii odhan jiray iskuulkaasi waa taxfiid qur'aanow war ardaydii iskuulladaa taxfiid qur'aan loogu dhigayaa marmarsiyo kale ha noo samaysan soo magacaa doonto ula bax manhajka wasaaradda waxbarashada waad raacaysaa haddaad wax dheeraada u dhigayso dee cidi kuu diidi mayso ninka imika afarasiis u dhigay iyo ka amxaarig u dhigay iyo af kale miyaynu diidana laakiin horta af soomaaligii
iskuulka af soomaali lagu dhigan waayana sanadka waxaan bilaabaynaa fasalka afraad markay ka baxayaana in laga qaado imtixaan ardayga af soomaali iyo xisaab ku baasi waaye fasalka afraad ma gudbayo taa ogaada sidii fasalka 8aad loo qaadayey ee ka 12aadna loo qaadayo ayaa loo qaadaya marka iskuuladaana maalin dhaweyto mid gubtay baa jiro ku gubteen ardaydii waxaa loogu gubanaya waxa weeye waanu soo diiwaangelinayn dabeetana standardkii ama nidaamkii ay wasaaraddu samaystaan raacayn dulqaadkaasi wuu dhammaaday nin walowba ogow wallaahi inaanan ergana ka yeelin ninka sharciga jebiya ilaahay baa nagu cadaabayaba kitaab baa gacanta lai saaray aad dastuurka iyo sharciga dalka fulinayso haddaan kay dhaqarsado dee ilaahay baa ay arkaya soo maaha dee madaxweynihii iyo xubnihii golaha wasiirada arrintaasi waa sharci waanu fulinaynaa sidaa ku ogaada dhacdo halka maanta ka dhacday maxaa sabab soo aragteen maxaa khasaaraha ee dhacay markay dhacdo waxa cid baa u xil saaran laamihii dawladda wasaaradduna waxay u xil saartay waxay leedahay guddi qaabilsan marka xaalad noocan oo ay dhacdo iskuulkii hore go'aankoodii waa kuwii soo saaray iskuulkana go'aan bay ka soo saareen macali wasiir halkan xabad baa ka dhacday arday ciyaala baa dhiganaysay ciidamada booliska Soomaaliland maxay khatar u geliyeen nafaa ciyaalka dhalinyarada ee halkan dhiganayso ciidan rasaasta badan rideen ciidanka booliska ayaa jibiya jawaab laakiin ninka rideen waa ciidanka booliska ciidan kale oo hameen وعيدا كلام سكول كإلالين أيدوها وأنا خلدات كتيرة. واي. إنه ولي بقى سكري وكرنا هي بلا سواك حيسوب مهردي سكانه. وخلدات كتيرة وسيح جونا. سكري حبة دار هنا عيدا كيس والله ما حرير يتلس كيسي وأنا بباريها. أنا هاد خلد حيوانه هاد. واحد خور بحساسات الله حري سواش الله بعنا حويان. هو حصل صارتين قاموا أطلب كتير كسيرة أو شيء مثال إن أرضي على الدقيقين. dadka qaar waxay u soo ogaanayaan arrintaas oo leeyihiin macalinka laga baqan maayo haddii degdeg wasaaraddu joojisay oo arrimaha saa keenay waxoon su'aalaha laga baqan maayadaasi wararta ninka rabshad sameynaya wuxuu ku barbarsoodaba waayo bakadana ku leeyahay laba dhegedin kara ardayda gacanta in loola tagana waa khalad sharcigaa laga qaadaya tallaabada la marinaya waalidkii baa loo yeedhayaa sidii tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadaya kaas sharciga fuli waayada waa la xidhaya waa kow marka taasi shaqo kuma leh talabaad waxa weeye markay meel wax ka dhacaan ciidanka booliisku dee iyagaa yaqaana wixii markaa dhacay sida u baadhayaan taas su-aasha waxaan u daynayaa taliyaha ciidanka waanu ka jawaabay asalaamu calaykum waxay ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ka mid yahay wasiirka waxbarashada Somaliland wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha dugsiga Salaama ayaa ay maanta shaqo kooban ka dhacday iyadoo ardaydu burbur gaarsiisay qaar ka mid ah daaqadaha halkan waa xarunta dugsiga Salaama ay maanta shaqaaqadu ka dhacday dugsiga sida la ii sheegay daaqadiisa ayaa dhibaato badan ay ardaydu gaarsiisay sidoo kalena waxay halkan ciidamadu ka rideen xabado inkastoo taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland oo su'aasha weydiiyay uu sheegay in aanu ahayn askari ka diiwaan gashan ama askari ciidanka boolisku ay halkan soo direen khasaaraha dugsiga gaadhay ayaa sababtay markii ardaydu ay godooday waa markii labaad ee dugsi ku yaalla magaalada Hargeysa muddo 10 cisho gudahooda ay ardaydu godooday isla markaasina ay dhibaato gaarsiiso wasiirka wasaaradda waxbarashada waxa uu sheegay in arrintan la baarayo marka la baarana warbaahinta la wadaagi doono waxaan isku dayi doonaa inaan idin soo qaybo ka mid ah dugsiga oo ardaydu ay burburiyeen daaqadahaas ayaa ka mid ah kuwa ay burburiyeen ardaydu dugsiga khasaaraha ay gaarsiiyeen dugsigu daaqadaha oo quraarad ahaa daraadood ayaa burbur badan oo ka muuqda iyagoo shiid iyo dhagax isticmaalay wasaaradda waxbarashada Somaliland waxay sheegtay in dugsigii kan ka horeeyay ee ahaa Nuuridiin School maanta go'aan ay ka soo saareen guddidii arrintaas loo xilsaaray sidoo kalena go'aan laga soo saari doono arrintani aad baad mahadsantihiin asxaabta bogga wariye Luqmaan tooska igala socday boggan waxaan idin ballan qaadaynaa inaan idin soo tebino wararka Soomaalida meel kasta ka dhacayaan iyo goorta ay dhacayaan intaasina waxaan ku saafmeeraynaa dhacdadii halkan ka dhacday dugsiga
salaame ee tooska aan idinku soo tabinaynay oo ardayda ay maanta shaqaaqo ay samaysay ay sababtay inay dhaawacyada la gaadhsiiyo dugsiga gudihiisa. dugsigana waxaa soo gaadhay mas-uuliin ay ka tirsan yihiin wasiirka wasaaradda waxbarashada, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha, taliyaha ciidamada booliska, taliya ku-xigeenka barasaab gobolka Murjeex, barasaab ku-xigeenka, dhammaantoodna halkan ayay warbaahinta kula hadleen. aad baad mahadsantihiin intiinii halkan aan sida tooska uga wada socon.